كانت ku maqlayseen diyaarad militariga uu leeyahay ay ku burburtay meelan sidaas uga fogeyn caasimada Addis Ababa saacad ciidana aan ka badbaadin warkaas iyo war ku saabsan dhismihii laga filayay xukuumadda cusub ee deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaan marlawad waxaan ka wareystay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Xikam oo iminka Addis Ababa jooga oo igu bilaabay diyaaradda burburtay cabdinuurow saaka wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay diyaarad military oo helicopter ah inay ku burburtay bariga gobolka Shawa waxay waday 18 qof waxaana kamid ah 18 kaas shaqaalihii waday diyaaradan helicopter-ta ee militariga ah wasaaradda gaashaandhiguna ilaa haatan wax kale oo sheegtay ma jiro waxay sheegeen inay diyaaradaasi burburtay 18 qof ay wadana ay ku dhinteen oo dhamaantood ay wada dhinteen baaritaanna lagu wado diyaaradda waxa sababay ay wasaaradda gaashaandhiga ee wadankani ay sheegeen isla wararka Itoobiya ee deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga maanta maamulka cusub waxa laga filayay inay xukuumadii ama golahoodii dawladda soo dhisaan maxaynu ka ognahay iyadana ilaa hada war rasmi ah oo madaxweynaha ka soo baxay in dawladdiisa dhisay qaabka uu dhisay ma jirto laakiin baraha bulshada iyo dadka Jigjiga waxay aad u dhaxwadaan wasiir walba iyo xafiiskii lagu magacaabay ayaa u dhaxwadaan waxaana la sheegay hadda xilligan aan salaadayna 2 saac ka hor in xafiiska madaxtooyada loo yeeray wasiiradaas la magacaabay bar kamid ah ila xoogaal oo meesha taagan ay sheegay marka waxa laga yaabaa inayna waqti badan qaadanin in la saaciyo wasiiradii ama dawladii Mustafa Maxamed Umar uu soo dhisay aad buu mahadsan yahay Xikam oo mar dhaweydna soo sheegay in madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar racfaankii uu u qortay maxkamadda ee uu ku doonayay in isaga oo banaanka jooga oo aan xirnayn la sii daayo inta dacwadaha ay socdaan ayaa maxkamaddu ay diiday maxkamaddu isla mar ahaantaana ciidanka booliiska waxa ay siisay waqti ay dalbadeen si ay u soo dhameystiraan baaritaanka ku saabsan eedaha loo soo jeediyay Cabdi Maxamed Umar halkaad nagala socotaana waa BBC London markana magaalada Nairobi oo sidii warka dunida aad ku maqasheen